bulshada soo galay bahdil bay ugu wadaa ilaahay waxaan ugu ballan galay ilmada aan ka keeno abidka inaysan ka istaagin shaqo in aad ka dhigto nadisyow nadis ku dhalay aabahaagi maadarka ahaa oo maalintu Sacuud Carabiya soo galayay reasonku ku soo galay nin reebicdiyaana inta loo diru soo dilay bal soo dhoofiyay Sacuudga lagu soo dhoofiyay so waxaan waan ka naxamalahay qof aniga iga naxaynin ama hayla dhasho ama aan dhalo والله iyo billahi oo tolaha inaan u joojinaynin hadda runta idin sheegayay reer wajiyo xun reer wax qaris biyahaasan idin ka cabaa waxaan ku idin sheegaya dhooci aniga sariirtii xunta ay guriga xunka hal qalbu de sariir xun iyo toilet iyo koobadiin iyo xabo dhigdhiga tan saa oo intaan diidi fadhiga seexan jiray sariirtiina markii aan ka tagayay guriga aan baxayay bayir anu guriga imaan mahaye qolkeeda ha iska seexato inta meesha xunta seexan lahayd hoostaan ka xirtaa qarjaf gabadhii aan ka sheekayn doono taariikhda hooyada guriga ku soo gashay idin sheegaya anigu waxaan soo gatay caag saliid ah tan baqaalada tagay oo dhalaas biyaha la eg baan soo gatay waxaan haystay indha kuushi indhaha lagu riso bootarka ahayd caag saliid ah waxaan ku shubay huruudi 20 something baan jiraa intaan jira idin sheegaya markaas anigu beenta ma aqaan intaan jiray baan idin sheegaya markaas afar laatan sano jiri markaan wato ayada oo sanad iyo xoogaa jirta 24 sano jiri naag aniga wax badan aan ka weynaay ma ahan habarnimana kuma dhalin anigu saliid baan intaan ku saliidii waxaan isku daray indha kuushi isku raxay sariirtii waan ku shuba korkeedii tan ka qaaday go'yaashii waan ku sariirtii ku shuba baqaalada inta taga makiinadna waa ka soo gata saasan faraashka u jeexjeexa ina Saciid xaashida joogta Ireland sariirtaas anigu aan jeexjeexay baa lagu dhala nacala adiga iyo aabahaaba ku yaali sariirtaan anigu jeexjeexay in saliida ku shubay ayaan dheer baa iga marxaati ah oo min soo joogto reer mahad ayaan dheer baa xaafada imaan jirtay oo taqaana dadku waa abogaay abaaru kaanta naya aniga ima taqaan hooyadaadii karbaashadaaydo kale anigu ma ihi nacala adiga iyo hooyadaaba ku yaali naagtaan aad maalin walba warkayga inta TikTok ka qaadid naya aad u geysid warkaaga way ii keentaa khaniisadii ku dhashay wasi iyo khaniiska ku dhalay yaa soo waxaa dhacday in aan sariirtii aan jeexjeexay anigu waa diiday waa dhoofa xamar baan ka degay because ayaduna waa habar booyaasanimo u timid oo markaan ka tagay buu guursaday sariirtiiba ilaahay baan ku dhaartay wiil hadda Canada soo galay iyo taasba ay ku dhashay habartu labadaasaan ku hartay ciragilgil bay ahaayeen adal madaysi ka bacdina Soomaaliya aad intuu yiri oo kaxeeyo gaalka cayageeyo telefoonada ka xirta because awalba raqiis bay ahayd so gabadhaydu kuwii bay isku dhadhajisaa hadda saacadan la joogo bay kuwii walaal ka dhigataa anaa bah ku banaasa dheer walaal ka dhigan lahaa noonaya walaalan aniga hooyaday dihan oo waliba ay garanayn mid aniga walaashay oo magaaladan degan hooyaday baa dihatay haddana ku banaasa dheer baa hooyo ah aniga hooyo uma ihi aniga walaashay ma ahan kuuba iga jeceshaha maandhawa dukaanka dalaq soo waxaan idin sheegayaa aniga ilaaha weyn oo ay abuurtay iyo inta jecel baa igu filan inta jecel iyo ilaahaygi weynaa waaxidkaaba aniga igu filan kuwa aan dhalay kan xurmeeyeen anigu rabaa kaan xurmeynina waqti uma hayo kii qambarac ku dhacda sida kayga hadeer la xiray oo kalena anigu wiilkayga graduationkiisa uu ii diiday inaan imaado aniguna xarigiisa waa imid because hooyaan ahaa so horta gabadhii waa la bedelay oo waxa la reexaa shibata halkaas loo jeediyo aabahay Saciid Birra aaba ku ah DNA iska soo qaadna alla adiga iyo aabahaaba ku yaali Yasmiinay nacala adiga iyo kan ku qaba iyo kii ku dhalayba ku yaali yaa
aabbaha baad baratay adoo xaarka saa u daadinaya haddaan kaa tegi lahaa maalintii John Guy maalintii igu yiri anaa kuu samaynaya fiiso Yurub ah aabaheed u dhig baan waxaan ku iri adoo taasoo aadan dhalin mahayn lahayd because inta la soo qaadaa xamar la keeni lahaa markaasaa Faadimo Xaashi Yuusuf loo keeni lahaa kaasaa tiibija ku dhici lahayd maanta ileefleefi lahayd marka maalintaasaan u diiday in aan ay dayacanto so runtaa la isu sheegayaay beenta way dhammaanaysaa aniga waxaan rabaa mataqaanaa in la furo garcadan in la furaan rabaa garoobka aragto welcome to the garoob because shacaba garoob baad haydo godobiirsi baa kusoo furay oo gabar kaa dhalay maantana ay wishinu nin fiican ku furi lahaa yaa waxaa ku furay waxaa ku qaba Dabal Muuse yuu yahay markii horena nin maadhar ahaa maantana hooyadaadii ku dhashay Nayaara ma ogtiin in hooyo aan la helin ee nin la helo inaan hooyo la helin ee nin la helo ma ogtiin nin inuu dariiq walba yaallo xataa tukaamo ninku yaallo tukaamo yaalla samogid inuu tukaamada yaallo dalow asagoo ah iyo asagoo dadqana daciif ah iyo asagoo gariiraya iyo inuu tukaamada yaallo ma ogtiin Nayaara inuu asagoo loser suuqyada joogo asagoo qaawin iyo asagoo lacag leeba inuu joogo ma ogtiin marka hooyo yaa hela hooyo ilaanta adiyada waliyo na hooyo yaa hela haliganto habaar ku dhacay yaa baa hooyadeed goysa naag kasto idinka mid ah oo hooyadii dhashay goysa Nayaara hooyaday qabri iyadoo ku jirta Bransfield ay ku xabaaran tahay intaan hadda imid 6 bilood ban jooga 4 jeer aan tagay yaa hooyo heli kara hooyadu waa lama hura na hooyo heli kara naama nin bay gabadhaydu waayaysaa bay waayi lahayd laakiin hooyo way waayaysaa yaa hooyo maanta anigu waxba kama raba gabadhayda qofka xunkaayo caaga ku xaarayo truck driver-ka aho Damal Muuse oo doqonka aho dabinta cad maxay waxaanina yaa Damal Muuse oo dayuuska ah oo dabinta cad yaa oo daasadaha ku xaara naya anigu uma baahani laakiin dadkan waxaan barayaa waxa jira runta aban dadka idin baraya anigu gabadhayda gaajo uma qabo dhibaatana ma qabo ilaahay quruxdaas iyo qiimahaas isii laakiin waxa idin barayaa da ilaahay ugu caydaan baan rabaa ilaa waxa idin dhahay ugu caydaane gabadhayda caasiga inay dhahdaan baan rabaa nacala aabihin ku yaali u soo fariista bariyo naya igu caay dhilooyiho ilaa aqli kale ma lihidin ما أنا وعيد أنا إذا برنايا أنت المعلومة بيدين سافرسون يوتيوب يا فيسبوك يا تيك توك يا إذا سافرسون أنا برعيد إذا المعلومة برنايا إذا برا ما كان صدق بيه إذا كقولامية ما كان صدق عاني إذا كقولامية ما كان صدق قرآن كإذين دقا ما كان صدق بالكي ABC إذين دقا ألفابيت كسيسة إذين قرآن يا رعيد إذا إذين قرآن أيا قرطة العقل كلام اللي هدني إن ننرى هذين إنسانية إن تذكر عايسان مو يعني درسان ورا مساعي أنت إذين برياي أنا يكون كردها باليدها إركا يشرع عبار نهي إيه ناقوال قاضا يا نايا أنا قمنا إمد برتو أنا أقول I am who I am I'm queen كردهب مدى إلا دلتا إيه ما فهمتو بيتر هذا ناقحونو كسور جيدا نايارا نخلقو هايون ندبايو أو برلي نايا با كسور جيدا مركاسي واحد دمعنا إني يقول بهدشو بهالكيدا بيعشن لهي دي أنا يقول بهدليسو نايارا maxaa hooyinkan ku naxdaan maxaa hooyinkan uga tagtaan Nayaara aniga nin guursaday carradho hooyad ma irabin intuu nayaa kaxeeyo kii qabi jiray mid ka mid ah hooyaday 24 markaan dukaanka ku lahaa yaa buu inta gacabto oo musqusha geeyo dumarka oran jiray walaa ilaa musqusha naagaha ma gali kare waayo maamadan ii ilaaliya musqusha ku dhacay hooyo ma dhacahayo intay tiraado hooyaday waa hadhowna isagoo gacanta haya keeni jiray musqusha albaabka inta u istaago Nayaara أنا شقيستي أجر كاس إذن كن هويدين بقى فانتان نايا هوينكن كو فانتان ما حنا هوينكن أقف فانتان نايا أنا قلنا ناقت إيقا فانيسا ناقت إيقا في عن أي هويك ديقا لهد ميشي كرتان
naagta aniga iga faanaysa anigu gabadheeda waa ka qurux badnaha ma ay fool xuma laakiin waa ka qurux badnaha iyada quruxdana waa qalbiga nayaara anigu walaal aabahay dhalay walaalka ma dhigto because naag kala dhashay baa inta uriyo baa naag kale iiga uraa naag kala sabiisheed wax ka soo baxay dooni maayo anigu gabadhayda doqonta ah dhoocishu xuntahay Ireland joogta oo aan hooyadeed sabiisheeda ka soo bixin sabiil kale ka soo baxday bay urursataa walaashay dadka leeda waa goorma dadka lahayd gabadhayda adeerkeed xasan xaashi la dhaw wadankii jooga waaga xamar laga soo qaxay baan boosaaso imid isagoo gaari weyn wata waxaan ku yiri adeerow gaariga waxaad ii saartaa tuka bakhaarkaan sokor ka soo deyntay adeerow sokorta ii qaad aan gabadha caan uga raadsaday baa ilaa gaajada la iskuma naco markaasuu wuxuu yiri waxaan kuu sheegaa na gaariga haddaad raranaysid oo raro haddii kalena iga hor dhaqaaq buu igu yiri waa gaarigii hadda dowladda waa da'dii gaadiidkii dadweynaha weeye gaarigu wato waa tuug waa gabadheeda adeerkada abeeda dhashay xasan xaashi wadankii buu joogaa waa tuug gaarigu wato waa tuugo u soo xada because waa gaadiidka dadweynaha ayaa yaqaanay anigu been ma aqaano wajina ma balhiba ha iga sugin waji aniga so wiil reeb mahada oo gaari raranaya gaari iska leh gaarigiisa dadka la raranayo ina fara badane allah u naxariiste cabdi